xalay abaaro labadii subaxnimo waxay ciidamada qabteen gaari nooca caasiga loo yaqaan oo hilibsaday kadib markuu diiday in la baara iskuna daya inuu laaluush askarta dhowr bar kontaroolo ee ka mid yihiin 4 jardiino Siinaay Sancayi Mariino uu siiyay isku day inuu siiya kadibna waxa loo baahday oo kadib markii laga shakiyay waxa loo baahday in loo waca ciidanka booliiska ee miina baarista si loo xaqiijiyo gaarigan iyo sababta uu diiday inuu mara hanaanka looga talagalay dhanka anshaxa iyo ciidanka hadaan ka hadla iyo la dagaalanka musuqmaasuqa howl adag baa dhankaasina ka socota oo barbar socota howlsha ee howlgalada hadda amniga lagu sugaya taliska booliiska Soomaaliyeed oo dhageysanaya cabashada ka timid shacabka muddadii howlgalkan socday oo 4 cisho la soo dhaafay waxa la xiray 23 askar oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo lagu soo eedeeyay falal musuqmaasuq la xiriira mas'uuliyiinta dawladda siyaasiyiinta ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa inay u hoggaansadaan sharciga isla markaasna la shaqeeyaan booliiska hubinta amniga muwaadiniinta amniga wadanka waa mas'uuliyad gaar ah ayaa dhamaanteena naga saaran sidaas darteeda waxa mar kale ku celinaynaa in la wada shaqeeyo loona hoggaansado shuruucda iyo awaamiirta lagu sugayo amniga ugu dambeyntii mar labaad waxaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo ku sugan caasimadda sida wanaagsan ee noogu dulqaataan howlgaladan intii socda iyo sida wanaagsan ay ula shaqeeyaan ciidamada booliiska mar labaad mar saddexaad waan iga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa kuna ka soo niqamnaa inay sii socon doonto insha Allah Dalsan TV waa maasan tahay anagu hadana ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa aad u isku taxluujinaa in shacabka aan u fudeyn inta u fudeyn karna waan ognahay xiritaanka jidadka inay keenayso culays isku socodka gawaarida isku socodka shacabka saasay tahayna waxaan diyaarinay baabuuro basas oo loogu adeego dadka u baahan yihiin sidoo kale waxaan diyaarinay sida shalay idin sheegay ambulansyo oo u gargaara dadka u baahan oo geeyo meelaha looga baahan yahay marka idinka noo dulqaat anaga in fududeyn karana waa idin fududeynaynaa laakiin amnigeena waa muhiimad gaar ah noo leedahay shacabkana maxaan ku yiraahdaa anaga aan doonayna inaan badbaadina